الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan halkan aan usoo istaagnay in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno magacaabista mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida iyo dadkayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaa kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahaa oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo wada cad oo mustaqbalkana lagu waxeeyo kale shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha oo noogu tabarucay ummadda Soomaaliyeed annaguna aan la garanay oo u garanay waanu naga aqbalay asaan sheegi doon haddii la yiraa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dawladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin si kasta aan u tabar yaraano laakiin waa inaan ka warqabnaa in awood kasta oo dawladdaanina ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay haddii xataa wax weyn aan la qabanin xataa in la og yahay laakiin ogaal la'aan aanu qofna ku dayacmin xaaladii aanay faraha ka bax aanay ku noqonin waaye muhiimadda ugu weyn ilaahay idinkiis waxaan dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno dawladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto intii abaarta nooga dhimatay Allah u naxariisto inta kale oo dhibaataysan ilaahay ha naga wada qaado dalkoo dhan iyo gobolka Geeska Afrika oo dhan ay ka jirtaa abaartu waxaan rajaynaynaa roobabkii da'ay meelihii ay ka da'een kuwa waxtar in ilaahay ka dhigo kuwa kalena ilaahay inoo keeno dawladduna wax kasto ay suubi karto iyo dadaal kasta ay sameyn karto kama gaabin doonto dadkaasna duruufaha hadda ay ku jiraan in laga jawaabo mustaqbalkana in loo sii meel daya haddii aan la yiraa arrintaas ayay ahayd muhiimadda ugu weyn aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi rahmaani rahiim mudane madaxweyne aad iyo aad u mahadsan tahay mas'uuliyaddan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aad nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aad u yar maadaama dawladdii ay xilli kala guura ku jirtay haddana xilli kala guura ay ku jirto inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aad u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah annagana aan mas'uuliyaddaas aana saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas'uuliyaddaas aana saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbal hadduu Ilaahay yiraahdo waana u gunto doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax allaali wixii aan gaarsii karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dawladdana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno hay'adaheeda kala duwan adduunkana aan ka helno mar kale waa ku mahadcelinayaa kalsoonidaas ayada ah oo dadka Soomaaliyeed ugu shaqeeya aadna siisay aad iyo aad u mahadsantahay mudane